beel ka mid a beelaha degmada Buloburte ee gobolka Hiiraan ayaa maanta kulan ay ku yeesheen degmada kaga soo horjeestay warqad dikreeta oo ka soo baxday wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabelle taa oo lagu magacaabay gudoomiyaha cusub ee yeelanaysa degmada Buloburte. aniga meesha dadka fadhi waxa daweyn waa ku yar yihiin wax badan oo saqiir ana beledkan imid maalikaas iyo bariga inta ka dhaxaysa Buloburte reehbalaas kala waligeeba maqal laakiin Buloburte lahan maqlay ninkii shalay gudoomiye inta bedelay gudoomiye ku xigeen ku meel gaar magacaabay intii deegaan laga dhisayo leeyahay gudoomiye kale wadana soo magacaabay war ninkaas ilaahay inta ku dhaarshay ma dulmi oo rabaa ma si daacad u ka talinaya dulmi oo rabaa Hirshabelle ka yeeli mayno hadda inta hore waa u dul qaadan jireen laakiin maanta wixii ka dambeeyay uma dul qaadanayno waa iska celinayna waxaan adduunka u sheega oo caalamka u sheega oo UN u sheega oo ummadaha dadka kala celiya aanu sheega nimankaas naga gardaran oo u soo horeeya ninka wasiirka arrimaha gudaha oo subaxiina kuwa bedela maalinkeena gudamada bal dadkii wax dhisay ha loo sugo oo dadka ummadda hor socda ha loo sugo markii la yiri war waxba ma oga kuwaaniye war sidaan ka rabna aan yeelno nimanka joohar fadhiyo oo ninkii u tagaba warqadda soo siina nimanka joohar fadhiyo oo ninkii u tagaba warqadda soo siina aniga hadda haddaan tago biri way soo siinaan dhammaantayna haddaan nin u tagno oon xataa dhahna aan baroobayno waanu soo siinaya hadda koorna hore u ballan qaaday maamulkii kan ugu dambeeyay soo magacaabay inuu dib dambe reer Buloburte maamul ugu soo magacaabi doonin waxaan ku heshiinay inaanu maamul aanu samaysano waxaan uga fadhino han ka sugayno waxaan ku heshiinay inay hirgeliso dowladda Hirshabelle waxaan uga fadhinaa inaan wax dambe la soo magacaabo aanan qaadan doonin anana qaadanayn aynana ku tala galay go'aanku wuxuu joogay ku simay u magacaawdeen fuliya arrimaha maamul dhisida inuu hirgeliyaan intaasaan uga ogolnahay wax ka dambeeyo oo aanu qaadan doono arrinkaas ma jiraan mana naga sugayaan waxaana ka aqbali doonin oona ka yeeli doonin oo meeshay inay keenaan ninkay keenaan ay soo magacaabeen meesha keenaana laga rabaa ma ka aqbali doono dhulku kuma imaan kareen cirkii rabaa inuu ku yimaado garookana aanu ka taagan lagama soo deji karo saasaa leeyahay dhibaato kale inaysan abuurmi waa ku talinayna magaalada ummadda leh waa la yaqaan cid walba inay cid ku xidgudubto sharciga islaamka kuma jirto kumana wanaagsan ninka tilmaamanayo waxa jiray nin geela marqaha ka furo yiraaha anaa leh saraha tilmaan ka bixiyo yiraa anaa leh waxa uga dan leeyahay waa la noqotay laakiin waa arrinan munaasib ahayn cid aan maagayna iyo cid aan dulminayna iyo cid aan awood u sheeganayna midna ma jirto dawladda Hirshabelle inayna isku dirin mujtamaca degmada Buloburte oo nabad ku wada nool inayna iska horkeenin haddii waxaas ay sii socdaan oo fikradaas ay halkaas ka soo socoto wixii ka yimaado oo dhiba waxa leh oo abuuray Hirshabelle aadlo warqadaas ma aqbalayno nikaad magacaawday waxaad u dirsan rabtay u dirsan laakiin Buloburte kama shaqeyn doono insha Allah taas waxa duraya wasiirka arrimaha gudaha madaxweynaha Hirshabelle iyo madaxweyne ku xigeenka waxaan leenahay ugu baaqaynaa ayagana ballankii macaayo noo yiilay hal fuliyo intaas u dhaafi maayo waxa jiray nin la leeyahay wabar anaga ugaasaan u naqaano idaacadaha ka hadlay oo yiri Buloburte anaga la beereer hebel waay wabarow dadkaadu degmadan 5% kama dhama hadad qurbaha dadka keeni rabtayna waa sugaynaa waxaan ku leenahay marka anagu wabar ugaasaan u naqaa ugaas been sheegay wiligeena ma arage waxaad yeeli ilaahay u toobad keen ummadaadana dhaxda uga jur hadaad ummadaada dhibaato u abuurto ummadayda Buloburte laga raro waay macnaheedu anaa leh fasirkeedu wuxuu noqonaa Buloburte afarta in joogta la iga soo wado
ugu dambeyn Abduqaadir Maxamed Cabdi Xiifo ayaa kulanka kadib warbaahinta u akhriyay war-saxaafada dhowr qodob ka kooban ka oo laga soo saaray kulankii maanta waxaa shir isugu yimid taariikhdu markay ahayd 3 bishii 11 2019 beelaha degmada Buulburta beel kamid ah oo ah beesha Xawaadle shirkaas gunaanudkiisii waxay ka soo saareen war-saxaafadeedkaasi waxa uu leeyahay cid allaale cidda ay qusayso waxaana la ogeysiinayaa dhammaan inta lugta leh dhismaha maamulka degmada Buulburta beesha Xawaadle ee ku dhaqan degmada Buulburta kadib markii ay shir isugu yimaadeen waqti dheerna ay ka doodayeen arrimaha la xiriira maamulka degmada Buulburta beesha waxay gaartay go'aamada soo socda beesha waxay cambaaraynaysaa maamulka Hirshabeelle oo iska horkeen bulsho ka wada degmada kana baxay wixii ay kula heshiiyeen dhammaan beelaha degan degmada Buulburta beesha ma ogola mana aqoonsan doonto maamul dambe oo loo soo magacaabay oo aan ahayn mid bulshada ay soo dooratay inta laga soo dooranayo golo deegaan oo ay degmadu leedahay waxaa xilka gudoomiyaha haynaya gudoomiyihii ku meelgaarka ahaa oo hadda jooga mana aqbali doono wax magacaabis dambe ee ka soo baxay wasaaradda arrimaha gudaha Hirshabeelle digniin waxaan u digaynaa dadka ayagoo ah dad aad u yar meel walbana la taagan in Buulburta leeyihiin inay joojiyaan durbaanka beenta ah oo ay garaacayaan haddii ay sii wadaan ayaga mas'uul buuxa ka noqon doona wixii ka yimaada digniinta labaad waxaan ugu digaynaa maamulka Hirshabeelle in ay fuliyaan wixii ay kula heshiiyeen bulshada reer Buulburta gaar ahaan beesha Xawaadle farahana ay kala baxaan iska horkeenka beelaha walaalaha ah talada maamul dhisidana ay u daayaan dadka reer Buulburta ah kuwa xaqa u leh haddii kale wixii dhibaato ah oo ka yimaada ayaga ayaa qaadan doona waxaana u sheegaynaa maamulka sare ee Hirshabeelle dawladda federaalka ah iyo beesha caalamka in dhibaatadaas ay wadaan maamulka Hirshabeelle gaar ahaan wasiirka arrimaha gudaha Caadle dhibaatadaas Buulburta haddii ay dhibaato ka timaado in mas'uuliyadooda uu qaadi doono wasiirka arrimaha gudaha mudane Caadle. Wassalaamu calaykum.